بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ogeysiis ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna amray inaan xalaasha quudanno xaaraanta ka fogaano. Shirkadda iska leh buskudkan idin muuqda awriyo la cuno ama lagu darsado caanaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxay shirkaddu cadaysay buskudkooda inuusan xalaal ahayn uu xaaraan yahay. markii su'aal la weydiiyey oo ay ka jawaabtay arrintaasina waxay ku cadaysay page-keeda ayay ku cadaysay sida aad arki doontaan. waxaan galay page-koodii, waxaan fiiriyey su'aalaha la weydiiyey, waxaa ku qoran is awriyo xalaal baa ku qoran. su-aashaas ayaa la weydiiyey, waxay ku jawaabeen no, awriyo is not xalaal ma ahan, waa xaaraan ayay dhaheen. shirkadda iska lahayd ayaa cadaysay page-keedana ayuu ku jiraa, waad nagali kartaa. buskudkan dad badan baa aad u jecel, muslimiin badan ayaa in badan cuni jirtay. waxayse ku baraarugeen oo ku naxeen ama ku tooseen markii akhriyeen warka ah inuu buskudkan xalaal ahayn. isla markaana shirkaddii ayaa cadaysay, ma ahan war kaftan ah, ma ahan war been ah, waa war ay shirkadda cadaysay. dadku aad ayay u jecel yihiin, naftuna way jeceshahay, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsano, xaaraanta aan ka fogaano. dhinaca kale shirkadda waxay sheegtay buskudyada lagu sameeyo wadamada muslimiinta sida imaaraadka, sacuudiga, masar oo kale, wadamo adiga dee dowlad adag leh, in buskudkooda uu xalaal yahay. haddaba qofka muslimka ee ku nool qurbaha ama ku nool wadamo gaalo aan muslim ahayn waa inuu iska hubiyaa waxa uu ka kooban yahay buskudkaas, inuu iska daayo ayaa khayr badan. sababtoo ah shirkaddii iska lahayd ayaa afcad oo buuxda ku tiri buskudkeenu xalaal ma ahan. taas macnaheedu waxa weye waa xaaraan. xaaraantan in laga fogaado ayaa fiican. ilaahay subxaanahu watacaala idin astura.